بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أمد الصوماليات مeel kastoo aad kaga nooshihiin daafaha caalamka walaalayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena tiicanaha ee ugu talagalay barashada af Soomaaliga kaasoon uu magac daray quruxda af Soomaaliga. Barnaamijkan isaga ah waxaan soo dhigaa bartayda YouTube-ka sidoo kale inta barnaamijkan isaga ah wuxuu ka baxaa TV-ga la yiraahdo KTV ee ku yaalo magaalada Mankero isla markaan laga daawan karo magaalada Mankero iyo magaalada North Mankero. adeegan isaga ah wuxuu baxaa ama TV-ga laga sii deeyaa maalinta soo rogo oo ah maalinta Sabtiga ah 6:00 ilaa 7:00 fiidnimo. sidoo kale wuxuu baxaa maalinta koobin ama Axadda 8:00 fiidnimo ilaa 8:00 fiidnimo. isla maalinta lamin oo ah maalinta Isniinta ah barnaamijkan isaga wuxuu ka baxaa KTV 8:00 ilaa 9:00 fiidnimo. waxa waaye localkaasi marka waxaa laga daawan karaa sidaan hore u xusay magaalada Mankero iyo magaalada mataanaha la North Mankero. walaalayaal sida aad la socotaan cashiradii ugu dambeeyay waxaan kaga hadlayay naxwaha af Soomaaliga gaar ahaan qaybaha hadalka. waxaan ka soo hadalnay qodobada af Soomaaliga, waxaan ka soo hadalnay magaca iyo magacyaalka. maantana hadduu Allah awood la ogolaado waxaan rabaa inaan ka hadlo tilmaamayaasha ama adjective waxa lagu yiraahdo afka Ingiriisiga. tilmaame waa erey ka mid ah qaybaha hadalka. wuxuu raacaa magaca. tilmaan cadna wuu ka bixiyaa. tilmaamayaasha waxaa ka mid ah tilmaamo ahaansho, tilmaamo lahaansho, tilmaame tusmo, tilmaamo su'aaleed iyo tilmaamo tiro. tilmaamaha marka loo fiiriyo naxwaha af Soomaaliga tilmaamaha ama adjective-ka wuxuu u qaybsamaa 5 qaybood oo kala ah tilmaamo ahaansho iyo tilmaamo lahaansho, tilmaamo tusmo, tilmaamo su'aaleed iyo tilmaamo tire. halkan waxaan rabaa inaan ku soo qaato tusaalooyin la xiriira 5 qaybood ee u qaybsamo tilmaamaha af Soomaaliga. tusaale ugu horeeyo waxaa qoslay wiil yar. sidaan sheegnay tilmaamahaasiisaba wuxuu qeexaa ama uu tilmaan cad ka bixiyaa magaca. marka magacan wiil ah waxaa qeexaya ama cadeynaya siduu yahay wiilka yar. waxaa qoslay wiil yar marka waa tilmaame ahaansho oo wiilkaasi waa yar yahay marka waxay ku tusaysaa inuu tilmaamahan yahay tilmaamo ahaansho. tusaalaha labaad maalin walba waa inaad dhaqdaa jirkaaga. tilmaamahan isaga ah magaca la qeexaya waa jirkaagana waxa waaye waa tilmaamo lahaansho oo kaaga waxay tilmaamaysaa lahaanshaha jirka marka waa tilmaamo lahaansho. tusaalaha labaad. tusaalaha saddexaad bal u yeer ninkaas. nin waa magac. tilmaamaha qeexayana waa kaas oo ah tilmaame tusmo. bal u yeer ninkaas. tusaalaha afraad la xiriira 5 qaybood ee tilmaamaha waxa weeye dadka meesha tubani waa 5 nin iyo 6 naagood. waxa la qeexaya magaca la qeexayo waa nin iyo naag taasoo ah 5 nin. 5ta marka waa tilmaame tiro oo waxay ku qeexaysaa in meesha ay joogaan 5 nin iyo 6 naagood waana tilmaamo tiro.
tusaale ugu dambeeyo ninkee baa qalin haysta waa tilmaamo su'aaleed oo su-aasha waxa keenay kee ninkee baa qalin haysta intaan u gelin tusaalayaasha ama qeexid gaargaar oo ku saabsan shanta qaybood ee tilmaamaha waxaan rabaa inaan u gudbo layli yar oo ku saabsan tilmaamayaasha su-aasha koobaad tilmaamayaasha intee baad ka taqaan su-aasha labaad tilmaamuhu muxuu qabtaa su-aasha saddexaad qor 3 weerood oo tilmaamayaal kala jaad ama kala nooc ama kala cayn ah ay ku kala jiraan waxaan rabaa marka inaan hal usoo qaato shantii qaybood tilmaamayaasha waxaan ku bilaabayaa tilmaame ahaansho tilmaame ahaansho waa erey qeexa magaca wuxuuna ku shaqeeyaa tiro raac kuma shaqeeyo cayn raac macnaha tiro raac marka aan leeyahay waxay hoos imaanaysaa wuxuu ku shaqeeya tilmaamaha ahaansho tiro raac hadduu wadar yahayna tilmaamaha wuxuu noqonayaa wadar hadduu magaca keli yahayna tilmaamaha wuxuu noqonayaa keli hadduu magaca wadar yahayna tilmaam wuxuu noqonayaa wadar sidaa daraaddeed ayuu wuxuu ugu shaqeeyaa tiro raac kuma shaqeeyo cayn raac oo ah lab iyo dhadig tusaale ahaan waa nin weyn oo caqli badan nin waa keli tilmaamaha raacay oo weyn ahna waxay qeexaysaa keli ahaan ayay raacaysaa waxay noqotay tiro raac oo tirada waa nin weyn oo caqli badan waa guri yar oo qurxoon marka labadan waa laba tilmaamo oo isku xiran yar iyo qurxoon waxay tilmaamayaan guriga waa gabar dhiil culus sida tilmaamaha isagaa wuxuu qeexayaa dhiisha sida ay tahay waa gabar dhiil culus sida tusaalaha afraad waxaan soo maray jid toosan tusaalaha shanaad xafiiska miis fudud ka soo qaad marka tusaalahan shantan tusaale waxayna tusayaan tusaale ahaansho oo magaca sida uu yahay sidoo kale waxaan rabaa inaan soo qaadano tusaalaha ahaansho sida uu u yahay tiro raac sida hoos ku qoran tilmaamo ahaansho qoristiisu way isbedeshaa haddii uu ka hormaro magac wadar ah magacaasu lab ha ahaado ama dhadigba tusaale halkan waa keli nin weyn markii uu noqdo magaca wadar tilmaamo ahaansho iyagana way isbedelaan oo wuxuu noqdaa wadar ayuu noqdaa sidaa waa sida marka loo yiri waa tiro raac cayn raac ma aha nin weyn niman waaweyn gabar cas gabdho cascas naag gaaban naago gaagaaban jid dheer jidad dhaadheer qori dhuuban qoryo dhuudhuuban waxaan rabaa inaan u gudbo qaybta labaad oo ah tilmaamo ahaansho tilmaame ahaansho wuxuu caddeeyaa qofka wuxuu leeyahay wuxuuna ku shaqeeyaa tiro iyo cayn raac labadaba haddii uu yahay keli lab ama haddii uu yahay keli dhadig iyo sidoo kale wuxuu ku shaqeeyaa dhadig iyo lab intaba tusaale ahaan keli lab waa tusaalaha keli lab iyo keli dhadig dalkayga waa markuu yahay keli lab marka uu noqdo keli dhadig wuxuu noqonayaa daartayda
dalkaaga daartaada dalkiisa daartiisa dalkeeda daarteeda marka tusaalahan isaga wuxuuna tusayaa markuu yahay keli lab iyo kala dhidig inay kala qaybsamaan uu yahay cayn raac oo labkana si loogu dhawaaqayo dhidigana si loogu dhawaaqayo markaan ilaaho dalkayga waxa hadlayo waa qof lab ah oo keli ah oo ka hadlayo lahaanshaha kayga markaan ilaaho keli lab daartayda waa qof dhadig oo hadlayo oona ka hadlayo wax milkida ay leedahay marka cayn raaca waxa waaye kayga tayda kaaga taada kiisa tiisa keeda teeda markii ay wadar noqoto oo ah tilmaamo lahaansho wuxuu noqonayaa sidan oo kaleento dalkayaga daartayada kana waa labki kana waa dhidigi oo wadar ah dalkayaga daartayada dalkeena daarteena dalkiina daartiina dalkooda daartooda marka dal iyo daar waa magacii gadaal waxaa ka raacaya waa wadar oo ah tilmaamo lahaansho kayaga taayada keena teena kiina tiina kooda tooda markan waxaan rabaa inaan soo qaato tusaale kaamil ah oo weere ay ku jiraan waxaan dhowraynaa sharafta dadkayaga waxaan dhowraynaa sharafta dadkayaga waxaad u shaqaynaysaa horumarinta dalkaaga wuxuu u dhimanayaa xureynta dadkiisa marka weli waxaan ku jirnaa tusaalihii tilmaamo lahaansho waxay tacliin baraysaa caruurteeda waxaan dhisaynaa dhaqaalaha dalkeena waa inaad wax barataan caruurtiina dadka qaar waxa ay u shaqaystaan calooshooda xaashidan ha ku taaban fartaada ushaadu kama dheero ushayda haweenaydu biyay ku shubtay haanteeda wiilkiisu waa da'deena ninkii shaqadooda nimankii shaqadooda ka bixi waayo lama rabo hadalkooda taasi waxay tusaalihii ku saabsanaa tilmaamo lahaansho ama milkida tilmaamaya milkida layligan isaga ahna wuxuu ku saabsan yahay tilmaamihii lahaansho erayadan tilmaamayaal ku habboon ku dar kadibna weero geli mar labaad su-aasha koowaad ee layliga waxay ku leedahay erayadan tilmaamayaal ku habboon ku dar kadibna weero geli jidad mashruuc dowlad dadweyne faras libaax tuke arday meelahan bannaan waa su-aasha labaad ee layliga meelahan bannaan tilmaamaha ku habboon geli
meelahan bannaan tilmaamaha ku habboon geli shalay waxaan gaaray xamar halka tilmaamo ku habboon ayaa loo baahan yahay waxaan la kulmay 4 wiil oo iyo 3 gabdhood oo joogsi kubad bay ku ciyaarayeen joogsi wiilashu dhar bay gashnaayeen hakad baruhuna dhar joogsi kolkaan soo noqday dhabbaha waa xarfii labalaabmay dhabbaha baan soo qaaday joogsi marka halkaasi waa inaad ku buuxisaa tilmaamaha ahaansho ee ku habboon tilmaamaha la ahaansho ee ku habboon meelaha bannaan tusaalaha saddexaad ee ku saabsan tilmaamo tusmo waa qaybta saddexaad ee qaybaha tilmaamaha uu kala baxay waa tilmaamo tusmo tilmaamo tusmo wuxuu caddeeyaa waxa laga hadlayo dhowaantooda ama fogaantooda sida nooga muuqato ereyga tusmo markaan maqalno waxaan nagu soo dhacayo oo isla markiiba maskaxdayna ka guuxayo waa dhowaan amin dhowaan iyo fogaansho tusaalaha tusmo waxay ku xiran tahay kelida labka iyo dhadiga oo waa cayn raac tusaale ahaan keli lab keli dhadig kan ninkan kaas ninkaas koo ninkoo keer ninkeer markay noqoto keli dhadigna waxay noqonaysa sidan oo kale tan naagtan taas naagtaas too naagtoo teer naagteer marka ay noqoto wadar labka iyo dhadiga wadarka waa isku mid wax oo cayn raaca ma laha waxay noqonaysaa waa tiro raac oo wadar almi ayay noqonaysaa oo ah kuwan kuwaas kuwo kuweer marka markay wadar tahay way ka wada dhexaysaa labka iyo dhadiga laakiin markay keli tahay ayay kala qaybsamaan mar labaad aan ku celiyo keli lab oo ah markuu keli lab yahay kan ninkan kaas ninkaas koo ninkoo keer ninkeer markay tahay keli dhadig waxay noqonaysaa tan naagtan taas naagtaas too naagtoo teer naagteer marka uu yahay wadar waa isku mid wax cayn raac maaha wuxuu noqonayaa tiro raac oo waxa waaye wax faraq u dhexeeya ma jiraan tusaale ahaan kuwan okay waxaad dhihi kartaa nimankan naagahan kuwaas kuwo kuweer markan waxaa rabaa inaan usoo qaato tusaalooyin ku saabsan tilmaamo tiro weliga ha aaminin ninkan tusaalaha labaad waxaad runta weydiisaa ninkaas ii nadiifi miiskoo raggan waan wada aqaan ninkeer ma ahee fartan waan qori aqaan waxaad ii keentaa kutubtaas waxaad ii keentaa kutubtaas tusaalaha toddobaad wuxuu rabaa birtoo tilmaamo tiro ayaan u galaynaa oon filaya in hal tilmaamo tusaale kale uu niisii dhiman yahay oo ah tilmaamo su-aaleed tilmaamo tiro wuxuu hore
iyo gadaalba ka raaca magaca tilmaamayaashii kale oon soo sheegnay tilmaamo ahaansho iyo lahaansho iyo tilmaamo lahaansho iyo tilmaamo ahaansho iyo tilmaamo tusmo saddexdaba gadaal magaca ayay ku xigsadaan oo magaca ayaa hormaro wayna ka dambeeyaan laakiinse markaan ka hadlayno tilmaamo tiro gadaal iyo horeyba magaca way ka raaci karaan wayna ka raacaan wuxuuna tilmaan kaa siiyaa inta magac tiradiisu tahay wuxuuna u qaybsamaa kowle iyo koowaadle sida 5 nin ninka shanaad markani waa marka uu yahay kowle oo ah 5 nin macnaha tiradaasi waxay ka bixinaysaa waxay ka hormartay tiradii ayaa hormartay oo magacii la qeexayay oo tirada tilmaamaha laga bixina ayaa dama maray 5 nin markuu noqdo koowaadle markuu noqdo waxaa hormaraya magaca waxaa daba marayo tilmaamo tiro 5 nin ninka shanaad kowle koowaadle koobaad 2 labaad 3 saddexaad 4 afraad 5 shanaad 6 lixaad 7 toddobaad 8 sideedaad waa meesha aan ka isticmaal ingiriiska okay 1 first 2 second so sidaa daraadeed waa inaad sidaa ula socotaa tilmaamaha tira ee af soomaaliga inuu u qaybsamo kowle iyo koowaadle oo kala ah koobaad haddana waxaan ugelinaa tusaale ku saabsan tilmaamo tiro aan dhamaystiro 9 sagaalaad 10 tobanaad 20 labaatanaad 30 soddonaad 40 afartanaad 50 kontonaad 60 lixdanaad 70 toddobaatanaad 80 siddeetanaad 90 sagaashanaad 100 boqolaad 1000 kumaad marka waa kowle iyo koowaadle tusaale 40 nin kan labaad la hadal 6 kursi kan shanaad wuu jaban yahay 10 arday kan sagaalaad wuu dhacay tiradu magaca lab wadar kama dhigi karto magaca dhadigise way ka dhigtaa sida lab dhadig 10 nin 4 naagood 20 guri 10 ulood 31 9 riyood marka ujeedada cashirka okay 5 beled 100 beerood 1000 askari 20 farood halkan haddaan wax yar ku laabto tirada magaca lab wadar kama dhigi karto tirada sideedaba markay raacdo magaca dhadiga lab noqonaya keli ayuu noqonayaa tiro kasta intay tahay laakiinse magaca dhadiga ah se waxay ka dhigaysaa macnaha wadar ayay ka dhigaysaa tusaale ahaan lab dhadig marka nin inuu lab ama dhadiga waxaan ku galinaa waxaa waye qodobadii raacaya dhadiga oo ahay ka iyo ga iyo ha iyo a intana waxaan ku dayaynaa qodobadii dhadiga raacayay oo ahay sha iyo ta iyo da
markaan ilaa marka ninka 10 nimood ma dhihi karno because sababtoo ah tirada ma bedelayso magaca labka ah 20 guri seen ku garanaya inuu yahay lab waxaan raacinaa qodob oo ah guriga marka sida daradeed waxaa noo soo bixisay guri inuu yahay magac lab ah sidaa daradeed ma qaadanayo macnaha wadar ma qaadanayo 20 guri 31 ka marka waxa waaye ma dhihi karno waa qalad 31 5 beledka ka ayaa raacaysa qodob ah sidaa daradeed waa magac lab ah marka ma noqonayo wadar 1000 askariga ga ayaa raacday marka waa magac lab ah mana qaadanayo wadar 1000 askari hase ahaatee markay tahay dhadig wuxuu noqonayaa wadar ayuu noqonayaa sida tusaale ahaan 4 naagood ma dhahayna 4 naag 4 naagood 10 ulood ul inay tahay dhadig waxaan ku garanay usha ayaa raacday sidaa daraaddeed waxay noqotay jamac 10 ulood 9 riyood rida 100 beerood beerta 20 farood farta marka waa magacyo dhadig ah marka sidaa daraaddeed markii tirada magac ay ka hormarto magac dhadig ah wuxuu noqonayaa wadar ayuu noqonayaa laakiinse labka ma noqonayo dhadig wuxuu noqonayaa keli ayuu noqonayaa oo isma bedelayo layli ku saabsan tilmaamaha iyo qaybihiisa qaar ahaan tilmaamo tiro wuxuu leeyahay magacyadan tilmaamo tiro ku dar 5 ka ugu horeysa waa tusaale waa noola sameeyey waa noola la xaliyey aan tusaalaha noogu caddaado 5 inanka shanaad halkan ayaad gelinaysaa tiro wiil waad buuxinaysaa layliga saddexaad halaad waad buuxinaysaa dugsi layliga shanaad su-aasha shanaad sano 6 tuulo 7 xuunsho waxaad qortaa tirada 1 ilaa 10 adoo ku tirinayo kowle dabadeedna tobanaadka ilaa iyo boqolka layliga saddexaad magacyadan dhadig wadar ka dhig tilmaamo tirana ku dar sida 6 gacmood il bil saan haan ri bir bar labaad magacyadan dhadig wadar ka dhig hadda waa dhadig keli ah waxaad ka dhigaysaa dhadig wadar tilmaamo tirana ku dar sida 6 gacmood wuxuu ahay gacan ayay ahayd gacanta waa dhadig waaye sidaa waxay noqotay 6 gacmood marka erayadan iyaga ah oo ah magacyadan iyaga ah oo ah magac dhadig oo keli ah waxaad u bedelaysaa wadar adigoo tiro raacinayo il bil saan haan ri bir isha waa sha raacday waa dhadig bil bisha sha raacday saan saanta ta raacday waa dhadig haan haanta ta raacday rida da raacday okay iyo birta ayadana ta raacday waa dhadig tilmaamo su'aaleed waa qurubka magaca dhamaadka ka raaca qurub horey hadda ka horna waan ka hadlay
qurub waxaa la yidhaahaa erey ka kooban isku tagga shaqal iyo shibane oo markay gooni isku taagaan aan macno yeelanaynin marka ay ka maqan yihiin weedhane weedhii macno ayna yeelin ayaa waxaa la yidhaahaa qurub tilmaamo su-aaleed waa qurubka magaca dhammaadka ka raaca tusaale ahaan fartee af soomaaliga lagu qoray far tee ayaa ah qurub soo tee markay gooni isku taagto macno ay samaynaysa keligeed ma laha haddii aan ka reebo magaca ay la socoto oo ay tilmaamayso macnama yeelanaysa jumladii haddaan idhaaho far af soomaali lagu qoray waxa waaye wax macno ay samaysa ma jirto marka sidaa daraaddeed ereyadaas isku taggaasi shaqalka iyo shibanaha oo sameeyey ereyga ah tee ayaa waxaa la yidhaahaa qurub qurubka af soomaaliga aad buu u badan yahay waxaa ka mid a aan buu ereyadaasoo dhan in aad i ereyadaasoo dhan waa qurub hase yeeshee markay gooni isku taagaan wax macno ma laha laakiinse marka haddii ka maqan yihiin weedha ama jumlada ay ka maqan yihiin jumladii macnaheeda wax macno ma yeelanaya wuu jaban yahay macnaha jumlada fartee af soomaali lagu qoray waddankee mooskeenna loo dhoofiyaa waxaan ka hadla waa tilmaamo su-aaleed marka qurubkaas isagaa ayaa su-aasha keenaya kee tee dowladee u hormartay dayaxa guudkiisa gurigee iskaashi lagu dhisay ushee maska lagu dhuftay furahee kaa lumay sacee baaciyey waxaan filayaa inuu yahay tilmaamo su-aaleed qeybtii ugu dambeysay shantii qeybood ee tilmaamaha naxwaha af soomaaliga aan kala qaybinay ereygaas qurubka ah runtii maskaxda lagu hayo waxa waaye mar labaad waa ereyada isku tag shaqal iyo shibane oo marka erey gooni u istaago aan macno sameyneyn laakiinse marka uu ka maqan yahay xarafkani macnaha jumladii ayna yeeleen laakiinse la socdo magac ama sentenska jumladii weedhii ku dhex jiro sida tee kee dee gii shee hee soo ereydaasi ayaa waxaa la yidhaahaa qurub layliga ugu dambeeyo qor 5 weerood oo tilmaamo su-aaleed ku jiro kana jawaab waxaad qoraysaa 5 weerood oo tilmaamo su-aaleed ku jira kadibna ka jawaab adoo ka tixraacayo tusaalaha kor ku qoran walaalayaal hadduu cashirkeenii maanta oon ugu talagalay kamid ahaa barnaamijkeena imtixaanaha ugu talagalay barashada af soomaaliga kaasoo ugu magacdalay quruxda af soomaaliga maanta intaas ayuu nooga egyahay hadduu allaha awoodda la ogolaado cashirka dambe ee soo socda wuxuu ku saabsan yahay waxa la yidhaha fal ama verbka iyo qeybihiisa taasoo kamid ah macnaha qeybaha naxwaha af soomaaliga intaan ku kulmayno cashir dambe oo ku saabsan naxwaha af soomaaliga waa istaad fanax ooda leh kulanti dambe oo xiise leh wasalaamu calaykum waraxmat ullah wabarakaat